adeerkayga dalka WhatsApp-ka intuu iga soo wacay asagoo iska dhigaya nin fiican way i qayaaneen wallaahi way i qayaaneen luuqay igu soo gala adeer dalxa WhatsApp-ka wallaahi hooyadayda allah iga qaado hooyadayda allah iga qaado ilmahan dhalay oo dhan ilaahay iga qaado way i qayaaneen aad i qayaaneen adeer dalxa adeer dalxa wuu i qayaaneen tamim adna way maqlaysaa dhiladii calooshu weynaad ku dhashay wase naagta xun ee khaniisada ah haddaad ummadda ka qabsan wayso haysan wayso walaal soofar anaa guursanaayo nin dambe erka sheegi mayso soofar anaa guursanaayo diyaar u ah nin dambe hadday bi a dhahda anay qabsada nin dambe hadday faatuush bi a dhahda anay aroos i qabsada hore waxaan dadka ka qabsanayo laba ku dhashay waa wasa kamiis ku dhala qabxadka hal mid aan kuu sheegaya horta tamiim lambar 1 kamiisiinta ma waso waa nin ragow boqolaa waxaad tiraahdaa ii soo fur anaa guursanayo maxaa qaban kartaa kulli hore wax ka qaban weyday maxaa qaban kartaa alla dhaqan xumaanayo dhaqan xumaan waxaan war miyaadan nin rag ahayn war miyaadan nin rag boqol la ahayn tamiimo anaa kuu sheegay naagtada haddii caayad kalmad ihi maayo adaan kuwa saayaani because of the adaa cishan weyday السلام عليكم أهلا وسهلا كلنتي وعن وناكسن أصحابتا كحران كنالكي قبالة سجين اوفيشال سو نوادا أصحابتا عصب هادا كدب إيبو صبير دونتو إذن كان سو نوادا فضلا هداد إيبو عصب تاعي سبسكرايب كسار قنبالا الكفورو لايك شير كومنت دير قلنت انت بابا حقينا كسو نوادا برنامج كينا فلقينتا سومالي الدراما سومالي الدوما سومالي الدنبي محاكا عصب بشا شعبان إيه بركيسن waxaa lagu qatimay fadeexo ceeb caay iyo dembi dadka caanka ka ahaa baraha bulshada dagaal ba'an haleesla dhiiqaysto halees aflagaadeeyo haleesku dambaabo ay taagan tahay bahasha dagaalka jabra iyo fatuush oo mar walba soo noqnoqdo aan dabaqabad lahayn aan dhamaadka lahayn oo mar walba isku dhammaado iscaayo jabra hore wuxuu ahaa xoogo qof wax xeeriyo laakiin hadda waxa way furkoo tuurtay waa laga badbadiyay hiiga ala gaarsiiyay 9ka marka waa la isla dhiiqaystay waa lees aflagaadeey dagaalka jabra iyo fatuush waxa dulsaar ku ah oo ku jirto huda amoon oo ayadana sheegtayba in jabra la qabo nin rag oo wiil dhalinyaro ah 20 jir ah in la yiraahdo yani waa la qabaa nina qabo Mareykan ugu imaaday hotel isla degan yihiin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un hasbina allah wa ni'matu wakiil ilaahu noo dambi dhaaf ilaahu inta maqalnay inta ka hadleeno iyo inta aragnay intaba ilaahay hanaga cafiyo dagaalka waa mid yani aan caadi ahayn oo la isla dhiiqaysanayo oo waxba la isku xeerineen oo waxba la kala reebanaynin fatuush iyo jabra way isku soo jabaabayaan waxba la isku ma yareysanayo fatuush waxay taagan tahay nin rag ma batidba jabra adigaaba naag maxaa ka tartaa sidoo kale jabra wuxuu leeyahay tamiim xaaskaaga cisho naagtaada hadaa ka adkeen oo cishan karin oo nimanka afka ee la galayso 9ka nimanka ee leefka u saaran tahay ii soo fur anaa guursanaya markaa guursadana qof ee ku dhagto ama iyadoo nin caynaysa ama iyadoo nin leef u saaran lama arkaayo fatuush oo kululaatay hiiga gaaray markoo jabra intaas dhahay way u soo jawaabtay wixii taagan tahay adiga naag maxaa ka qaadi kartaa ninkayga kuma soo jawaabayo labadeena naag isla ah labadeena maxaa la dhahayay konton low isla ah ya kontonaaba taagan tahay jabra naag maxaa ka tartaa kubi hore wax ka tari weysay jabra wuxuu taagan yahay asigana tamiimo naagtaada hadaa cishan weysay sidaan ma nin ku tahay damiir malihid miya wax yar oo damiir ah qalbigaaga ma dareemay miya naagtaada oo sidaan dadku ula caytamayso nimanku wax u saaran adigu waa la isla dhiiqaystay bil shacbaan dhamaadkiisa waay waqtiga cibaadada lagu jiraa inta maqalnay ina falaqeeno oo ku dambaawno oo yani sida anaga rabno ina sharaxaad ugu bixino oo sheegna ma ahan ilaahay hana cafiyo ilaahay hanoo dambi dhaafo ilaahay dambigeena iyo dambi muslimiin iyo dambi waalidiinteena ilaahay ha cafiyo ilaahay khaatimada hanoo toosiyo ilaahay khaatimada hanoo toosiyo kolay dadkan waa dad isku dambaabayo bahasha marka intaan marayso waxa la yiraahdaa waa dambaaba ee ila dambaaw dambigeenana ilaahay ha cafiyo dhanka kaleente Mario Dibley
maariya oo soo fadhiisatay ayadoo ooynayso sida caadadeeda ahayna hore usoo fadhiisan jirto ayadoo ooynayso oo markii ugu horeysay ooyinta ay soo fadhiisanaysa sheegtay inay yacni cunugeeda abukaato u qabsanayso maxaami u qabsanayso lawyer u qabsanayso lacag loo aruuriyey gabadhii laga sugayay inay cunugeeda soo ceshato maxaa la dhahay lacagtii loo aruuriyey oo dadkii lacagta u aruuriyey ka sugayay inay cunugeeda soo ceshato ayadoo faraxsan cunugeeda faraxsan isku qanacsan dadkana ku qanci doonaan sugayeen naagta maariya ahayd ninay keensatay ninkayga xaajigayga balaabala sida u haysay oo yacni naxariistii hooyanimo jaceylkii hooyanimo daryeelkii hooyanimo dareenkii hooyanimo intiiba loogu baahnaa ku bedelatay dareen jaceyl dareen nin ku bedelatay oo ninkeeda inay ku qanacsantahay ku faraxsantahay sheegaysay oo haddana mar labaad soo fadhiisatay ooysay sheegtay ninka inuu dhacay in maxaa la dhahaya ninka lacagtii ay ku keentay in ay cunugeeda dhanba ilowdayba ninka maxaa la dhahaa asiga lacagta ku keentay haddana mar saddexaad markii ugu dambeysay way soo fadhiisatay maariya oo ooynayso oo markaas qiiroonaysa markaa ilinteeda aragtidna ay isdhehaysid yacni aad ka damqanaysid ilinteeda oo la qiiroonaysid waxay sheegtay maariya in la khiyaanay in masaajidka norway lagu khiyaanay cunugeeda in ay gaalada ka qaadanin oo yacni ay ugu talagaleen culummadii masaajidka joogay ee garab siin waayeen u hiilin waayeen markay rabtay inay dadka u sheegto ee dadka usoo bandhigto dhibkeeda iyo meesha dhibka uu ka haysto cunugeeda sida loogu qaatay waxay eedaas dhan dusha ka saartay sheekh abudalxa waxay sheegtay anigoo dhibkeyga sheegan rabo dadka usoo bandhigi rabo dhibaatada meesha iga haysato sheekh abudalxa adeernimo khadka iigu soo galay whatsappka waa ku cishtay oo idhahay aniga iga dambeey dhankiisaa layga soo maray masaajidkii iyo culummadii iyo waxaa sheegi rabay asiga ay cishtay masaajidka ha caynin oo idhahay horta masaajidka waa beedka ilaahay caay ma lahan ceebna ma lahan qofkii caayo asigaa dembigiisa leh qofkii ammaanana asigaa ajirkiisa leh laakiin muhiimadda almuhiim yacni maariya waxay tiri sheekh abudalxa aa i dulmay sheekh abudalxa aa sabab u ah cunugayga intaan sano intuu iga maqan yahay muhiimadda anaga sharaxaad kama bixin karno fikirkeena oo saxda ah kama dhiiban karno arrinta maariya sababtoo ah sheekh abudalxa waxaan sugnaba waa jawaabta sheekh abudalxa ilaa iyo haddeer sheekh abudalxa kama soo jawaabin muuqaalkaasi habeen hore markaa arkay inaan ka hadla waa rabay laakiin waxay isdhahay ha degdegin horta jawaabta uu soo bixin doono sheekh abudalxa ka sug arrintan ilaa iyo hadda sheekh abudalxa lagama haayo jawaab sheekh abudalxa gabadhaas haddaad dulantay oo yacni waxay sheegayso run tahay iyo haddee been tahay jawaabteeda adigaa kuugu fadhinaa oo kaa sugaynaa inkastoo maariya la aamini karin ooyinteeda ee mar badan noo oysay waxay rabta noo sheegtay marna cunugaygaa raadsanaya cunugaygaa lawyer u qabsanaya cunugaygaa soo ceshanaya ayadii dhehaysay sida loogu sugaya cunug inay soo ceshato ee nin noo keentay haddana ninkii ay dhacay tiri